بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد waxaa inoo soo socday sharaxaada casharadii aan ku horumarinaynay qofka wacyigiisa baaxidka ah oo diyaarinaya baxdiga ha noqdo heer jaamacadeed oo baaj ama ha noqdo master ama ha noqdo doctora sidii aad u horumarin lahayd baxdigaaga oo adiga dhigi lahayd mid laa'iq ah ama cunama mustawahaaga cilmiga ah ayaynu sameynaynay koorsooyin ku saabsan arintaas haddana waxaan kusoo jirnay sidii aayadaha qur-aanka oo baxdigaaga kamid aad uga dhigi lahayd yani aayado qur-aan ah oo haddii la kure musxafkii waafaqsan sida hadda halkan horteeda ka muuqata aayadahan qur-aanka waxaad ujeedaa inaysan musxafkii waafaqsanayn macnaha ha waafaqsanaadeen ama ha xarakaysnaadeen laakiin habkii musxafka u diyaarsanaa hab ka bedelan inay u diyaarsan yihiin ayaa ku muuqata marka sidaanoo kaleeto haddii aad baxdiga kusoo gudbisid waxaad noqonaysaa nin mustawihiisa cilmiga ah iyo waxa uu soo diyaariyay ay kala duwan yihiin si macnaha baxdigaaga markaad u qurxiso oo aad baxdi qurux badan oo aayaadka qur-aanka ay waafaqsan yihiin yani musxafkii halka le madbuuca ahaa oo banaanka yaalay ayaynu baxdiga ku saabsanaa cashirkii ka horreeyay waxaan kusoo sharaxnay sida loo soo dejiyo barnaamijka la yiraahdo qur-aan war waxyaabaha aad baxdiga ku horumarin karta aayadaha qur-aanka aad ku bedeli kartid oo musxafka aad ku waafajin kartaa yani barnaamij kala bedelan ayay noqon karayaan dabcan war qur-aanku waa ka mid barnaamij kale musxaf almadiina la yiraahdaa jira haddii la kuranya waxaa jira qur-aan mid kaleeto asana haddii la kuranya Microsoft Word marka hadda waxaan ugu muhiimsan ugu waaweyn aan sharxi doonaa waxa weeye qur-aan Word iyo waxa la yiraahdo musxaf almadiina marka hadda waxaan kusoo jirnaa sharaxaada qur-aan Word waxaan noo soo hormartay sida loo soo dejiyo qur-aan Word oo haddii la kuranya aad uga soo degi lahayd internetka mowqica rasmiga ah aad uga soo dejin lahayd insha Allah casharkaas linkigii casharkaasna waxaan ku raacin doonaa videogan xaggiisa hoose oo qaaimatul wasfi ayaan kusoo dari doonaa sidoo kale linkiga aad kala soo degi lahayd qur-aankana waan soo raacinaya isagana casharkii hore inaad dhegaysataan waa muhiim si aad casharkan usoo gaarto leanno haddaadan haysan war qur-aankii waxba kuu talamayso casharkan dambe inaad dhegaysato haddaba sida loo isticmaalo war qur-aan ayaan bilaabi doonaa waxaad arkaysaa qaa'imooyinkii horeeto oo meesha inoo jira carda ayay ku ekaan halkan waxaa kusoo biiray qaa'imo ama haddii ay ku ran yahay tabwiib baab la yiraahdo alqur'aan waxaad aragtaa inuu leeyahay azraar kala bedelan iyo botamo kala bedelan oo wax laga maamuli karayo dhammaan botamadani waa waxyaabo muhiim inoo ah markaynu wax qorayno aayadda qur-aanka markaynu u baahanahay siyaabo badan ayaynu samayn karnaa inaan aayadda qur-aanka u raadsano halkan markaynu soo doorano ka bacdi yaa nimaadna halkan oo sidaan usoo furano xagga ayaa waxaan ku arkaynaa alqur'aan baan halkan ku arkaynaa hoosteedana waxaan ku aragnaa khaanadaheeda sidaan haddaba sharaxnay aan ku soo celiyay markaad u baahan tahay marka aayad qur-aanka oo sidaanoo kaleeta meel kugu yaalla inaad saxdo waxaad samayn kadhaa aayadda inaad highlight saarto deedna aad ka shaaf tiraahdo dabadeedna natiijadii aad sugto waad aragtaa daariyaad inay kuu soo baxday markaasna aad highlight saaratay intaad u baahan tahay ilaa aayadda 14 bay ahayd taqriiban ilaa aayadda 14 inaad highlight saarto dabadeedna aad tiraahdo idraaj al-aaya idraaj al-aaya waxay ka dhigan tahay aayadan aad soo copy karaysay ama aad soo nasakh karaysay inay wadato raqamul aaya oo haddii la yidhaahdo takhriijka ay wadato suuradda ay tahay iyo aayadda ay ka tahay ayadoo mar walba aayadahan ku muuqanayo oo haddii la yidhaahdo goobantan ay ku socoto la socoto yani raqamka aayadda ay mar walba wadanayso haddana waxaa kala bedelan in qowsayn la geliyo oo laba qows dhinacyaash laga mariyo qowsaska markii la geliyo ka bacdina la yidhaahdo aayatu daariyaat min aayati alkada ilaa aayati alkada marka haddii aan niraahno idraaj almuxadadna waxay noqonaysaa qur-aankan noo xadadan keliya ayay meesha dhigaysaa oo qowsna ma gelinayso takhriijna ma u samaynayso dhihmida suurat daariya aayatu kala ilaa aayati alkada nasakh almuxadad ayana waan dhihi karaa koobi garan karayna haddaan meel kale la aadayno aan halkaan ka baxno aan meel kale la aadayno hadda waxaynu dooranaynaa idraaj al-aaya طيب إدراج الآية مركين دورنا كان هوس أي نسكري دورنا هدي لها إدمه وحضرتها هل كان يتمد آية دي وعادية ومصحف كي عادية هدي أنوبة هنا يخط كذين ووينية ووينين كريا وحق إن عادي قاعد بن لا عادي كرينا كذا تعامل إن آيات كووينين تذا يريرين تذا تي وحي كدن بي ونسكحت فينا لأنه مباهنين ومركان وحين هلا aayadihii qur-aanka ah ee caadi ah marka aayadka qur-aanka waa aragtaa sida isu bedelay sidoo kale aayadda waxaad ka soo dooran karaysaa halkan tusaale intaan highlight basaaro inaan suuraddii halkan ka soo doorto suuradda daariyaat aayadda ay ka bilaabanaysa inaan dhiraahno aayadda koobaad aayadda ay ku eg tahayna inaan dhiraahno aayadda 14aad markaasna inaan iraahdo
idraaj al-aaya. isla sidii hadeertaan kala shaqadii hadeertaan ayuu qabanaya oo aayaadkii aan u dirsaday ayuu soo gelinaya, si fudud ayuu kusoo gelinaya. qowseynkii iyo waxyaabihiina wuu inoo soo raacinaya. halkan raqamul aayad ay ka dhigan tahay, tafciilu lqowseyn bay ka dhigan tahay, taxdiid alkhad aljadiid bay ka dhigan tahay. waxyaabahan oo dhan waan dooran karaya. haddii lacala aan ka qaado oo raqamul aayad aan ka qaado baalka la yiraahdo maxaan ku yiraahdaa haddii aan ka qaado tafciilkii, bal hadda aan aragna sida wax isu bedelaan. raqamul aayad tafciilkii waan ka qaaday, suuradda daariyaad baan soo doortay, aayadda koobaad ilaa iyo aayadda 14aadna waan doortay, idraaj al-aayana waan iri. waxaad aragtaa sida ay wax isu bedeleen. waad aragtaa inaysan qowseyn iyo waxba la socon. waad aragtaa aayadda inaysan la socon raqamul aayadii, waxyaabahaasoo dhan inaysan la socon. ayb haddaba aan dib uga baxo. haddii aan adeegsano markaa tafciilu lqowseyn keli ah oo inta kaleetan aan ka harnona aan aragna natiijada sida isu bedesho. wax badan isbedelay ma lahan oo laannahu waxaanan samaynin tafciilu lqowseynkii baanan samaynin. tafciilu lqowseyn ii samee oo halkaan highlight ii saar, idraaj iidha. waxaad aragtaa qows buu ku rogayaa aayaddii, laakiin sidii habkii aayadihii uma diyaarsana oo isla tii hadeertaanoo kaleeta ayay la mid tahay. marka amaradan oo dhan way ku anfacayaan, adiga ay akhrin doona, midkii ku munaasaba ayaad ka qaadan doontaa haddii alla yiraahdo. halkan waxaa weeye anmaada ama waxyaabaha haddii la ku leeyahay khadku intaad rabto inuu ka noqdo, oo haddii aad rabto inaad waaweynaysato waa yeeli karaysaa. 16 ayaa halkan ka dhigi kartaa. sidoo kaleeto aqwaas dalka la yiraahdo qomaas waxaad ka dhigi kartaa isagana 16. waad ku laabanaysaa, waxaad ka dhigi kartaa tabaacud al-asr ayaad weyneyn kartaa, tabaacud al-mufrad ayaad weyneyn kartaa. rumuustan halkan ayaad kasoo dooran kartaa aayadaha aad u baahan tahay. halkaana luqadda ayaad ka bedeli kartaa oo luqadda aad u baahan tahay ayaad ku bedelan kartaa. sida barnaamijkan haddii aadan carabiga kugu dhibayo, english ayaad u bedelan karaysaa oo wixii barnaamijkii oo akhriskiisii oo dhan english ayay noqonayaan. haddii aad carabiga ku fiican tahayna carabigaaga ayaad u daysan doontaa haddii ilaahay idmo. waayo haddaba kanaan kusoo laabto, markii aan barnaamijka kaa ku dhufto oo qur'aan alkariim aan ku dhufto, sidaan ayaa ii soo baxaysa. sidaana waxay la mid tahay isla doorashadii xagga ahayd dhowrkii khiyaarada meelihii wax kasoo dooran karayna ayay ka mid tahay. waayahay waxaad samayn karaysaa markaas suuraddii halkan ayay ku taallaa, waxaad highlight garayn karaysaa intaad u baahan tahay. kabacdina waxaad dhigi kartaysaa idraaj al-aaya. idraaj al-aaya iyo idraaj al-muxadad waxay ku kala duwan yihiin. idraaj al-aaya haddaan idhaahno waa aaya maca alcuzuwi waxa la dhihi jiray, oo aayaddii waxay wadataa suurat daariyaat. marka aayadda dhammeey ka bacdi ayuu wuxuu dhihi doonaa suurat daariyaat min aayat alkada ilaa aayat alkada. laakiin idraaj al-muxadad haddaan idhaahdo intaa highlight ku saaran yahay kaliya ayuu ii koobiyeynaya xaggii ii geynaya. idraaj naskh al-muxadadna waa la mid oo taasay kala mid tahay. tan waxay kuu sheegaysaa macnaha khalfiyada lownka midabka ayaad bedeli karaysaa oo midabka ayaad saad karta ka dhigan karaysaa oo ka shaqayn karaysaa halkan. yani midabka khalfiyada oo ka dambeeya aayadka qur-aanka ah si habka aad rabta ayaad ka dhigan karaysaa. tanina waxay ka dhigan tahay habka uu qur-aanku u diyaarsan yahay, ma isdaba joog baa u rabtaa mase waxaad rabtaa sidii musxafka caadiga inuu diyaarsan yahay. sidoo kale aayadda suuradda markaad dooranaysaa halkan ayaad kasoo dooran karaysaa oo suuraddii aad rabta aad tegi karaysaa. waa isla hadeer markii kor aan ka dooranayna oo kale siday ahayd si lamida ayay noqon karaysaa. halkaana waxaad ku qori karaysaa aayadda raqamka aayadda aad u baahan tahay, ayana saa waa ku baari kadha. halkan inaad ku qortay laftarkeeda waa ku baari karaysaa oo tusaale alkhayr inaan qoro, aan iska bedelo halka la yirahdo luqadda alkhayr inaan qoro waad heli karaysaa. alkhayr markaa qodho waxaad samaynaysaa tan ayaa waxaa ka dooranaysaa taxtawi ayan min hadi alkalimaat, تحتوي جميع هذه الكلمات العبارات بالضبط. مركا تنكر أيان دورنينا وحيريين يسوينا. هل كان يا وحارتان صور لغاي ضمان وحيابي كتعلقي الخير أي كتشرتي سبق الخيرات هاتو وصورة دي كتشرتا تاساي تاي وحلالي وحي الخير أي كتشرتي أيها الكائنات صور لغاي يعني بحث باتكو سوين كرئيسا مستقلة. haddaba haddii aanu soo aruurino 3 meelood ayaa kasoo dooran karaysaa. halkaana aayadda ka doorato, halkaana aayadda suuradda aad kasoo doorato, halkaana aad ka tafciiligayso min al-aaya aayadda ay ka bilaabanayso ila al-aaya aayadda ay ku dhammaanayso barnaamijka aad rabto. sidoo kaleeto inaad highlight saarto shayga aad u baahan tahay. markaad highlight saartana inaad haddii ay ku ran yahay al-kashaaf aad tiraahdo, in aad al-qur'aan al-kariim aad soo doorato, dabadeedna suuradda aad u baahan tahay aad kasoo doorato, aayadka aad rabto inaad ka highlight garayso idraaj al-aaya aad tiraahdo.
ama nasq almuxadad aad tiraahdo ama idraaj almuxadad aad tiraahdo inaad halkan ku qorto shayga aad u baahan tahay inahaas ayaa lagu baaraa marka aad joogto Word Qur'aan markastana waxaad ku horumarin doontaa aayaadkaaga aad baa u mahadsantihiin markaan halkan ka soo qorayaan raalli ahaada markii aan halkan suuradda ka soo doorto halkaana aayadda koobaad halkaana aayadda ay ku dhammaanayso idraaj ayaan dooranaya sidaas ayay inoogu soo bixi doontaa aayadkii ayadoo haddii ilaahay ku ranya ah weliba xaggan hoose iska ilaali raqamul aaya dooro intaan dhan tafciili marka intaan dhan tafciilisid hayleeda markaa baradiya tanna ka qaad tafciil alqawseynkana ka qaad iyo taxdiid aljadiid labadaasba ka qaad haddaa rabtidna tafciil qawseynka saar laakiin alkhad aljadiid ka qaad meeshaas leanno aayaadka si ay kugu muuqdaan sidii qaabkii suuraddu ay ahaydoo kaleeto laakiin markii ay kuu dooran tahay alkhad aljadiid aayadihii ayuu isda daba dhigayaa aayad kusii daba qoraya ma lehe mid walba midda kale hoosteeda ayuu geynaya marka khiyaarka iska ilqee haddii aan loo yiraahdo intaas ayaan kusoo gaabinaynaa waa Saciid Axmed Faarax oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi